السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين محمد أمين channelka iga daawanaysan magala socotaan waa Amin Media soo dhawaad meel kasta joogtaan waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan ku soo dhawaad muuqaal cusub balse intaan muuqaalkayga u guda gelin maanta waxaan si walaaltinimo ixtiraam leh kaaga codsanayaa haddii aan ugu cusubtahay inaad soo dhawaatid channelkan aad subscribe noo saartid wixii talo oo fikir ah oo muuqaal kasta aan soo gelin ku saabsan hoos aan ugu reebtid waa ku mahadsantahay taas waa codsiga kadib waxaan doonayaa maanta inuu muuqaalkayga aan kaga hadlo arrin muhiim ah arrintaas oo ah iska ilaali 10 arrin haddii aad qof kale ku aragtid oo walaalka ahna ka dhiirigeli ka waani si uu ugu digtoonaado hadduu diido ama qaadan waayana iskaga fogaa ama ka carar insha Allah marka ku soo dhawaada muuqaalkan marka koowaad waxaan ka cudur daaranayaa anigu ma ihi ustaad ma ihina macallin ama nin cilmi sare leh balse waxaan ogahay dhamaantiin ama dadka meesha ku jiro dad badan oo meesha ku jiro inay cilmi badan yihiin laakiin waxaan isku dayaa wax yar in ummadayda Soomaaliyeed la qaybsado lacalla waa casa inuu Ilaahay qofku anfaco marka wixii fikriga dhiirigelin ama ra'yi ay ugu diraysid hoos igu soo qor wixii talo ahna insha Allah waa soo dhaweynayaa marka tawankayga arrin aan guda galaya insha Allah ta'ala ama tawanka arrin oo u baahan qof kasta inuu iska ilaaliyo qof kale ku arkana inuu ka dhiirigeliyo ama inuu ka waaniyo hadduu yacni ka diido ama uu kari waayana uu iskaga dheeraado qofkaas markii faa'iido ma laha qofkaas oo kale soo dhawaada lambarka koowaad tamanka arrin ku bilaabo waxa weeyaan waa xaasidnimada haddii aad nafsadaada ka dareentid in qof xaasidaysid ama in nooc kamid ah xaasidnimada kugu jirto iska ilaali ka waantow haddii aad qof kale ku aragtidna ka waani hadduu diidana ka carar xaasidnimada waxaa kamid ah qof markuu faraxsan yahay inaad adiga ka xumaatid qof markuu wax helo inaad ka naxdid oo ka xumaatid qof hadduu wax Ilaahay siiyay wixii inaad ka xumaatid oo diidid inaad jeclaysto qofkaas inuu wixii waayo inaad jeclaysto qofka inuu dhibaato ku dhacdo taasi waa xaasidnimadana ma fiicno marka adiga haddii nafsadaada ku aragtid ka waani oo iska dhaaf oo xasuuso inay xaasidku uusan liibaanin alxaasidu laa yuflax nabigeena calayhi salaatu wasalaam aa dhahay marka haddii qof kale ku aragtid ka waani hadduu kaa diido oo ku aragtid qofka inuu kusii socdana dee qof xaasid faa'iido ma lehe waxa weeyaan dee ka dheeraw ma fahanti intuu xaasidnimada kuu beeri lahaa iskaga dheeraw insha Allah ta'ala marka koowaad oo kaas lambarka labaad waxa weeyaan qabyaaladda haddii aan nafsadooda ka aragtid adoo qabyaalad sheegayo ama qabyaalad ku faanayo oo macnaha qabiilkaaga faaninayo qabiilo kale caayinayo ama aad ku aragtid qof kale walaal ah oo qabiilkiisa ama qabyaalad kugu faanayo ama qabiil ka hadlayo kow nafsadaada horta waani iskana dhaaf waxaas rabbi wuxuu yiri qabiilku wuu jiraa lama diidana laakiin waxaa loogu talagalay kaliya la tacaarufo ayuu Ilaahay quraanka ku sheegay macna kala ma lahan qabiilka marka haddii aragtid nafsadaada qabiil iyo qabyaalada ku jirto ka waantow haddii qof kale ku aragto walaal ah ka waani hadduu diidana ka carar intuu qabyaaladii balaayo ku barin taasna waa iga waano insha Allah ta'ala marka qabyaalada wax fiican ma ahan halaga waantoobo meel kastoo joogtid waa ku mahadsantahay marka lambarka labaad qabyaalada weeyaan lambarka saddexaad waxa weeyaan isla weynida haddaad aragtid nafsadaada oo dareemaya isla weyni ama dadka kale iska weynaysiinayo ama dadka aan ixtiraamaynin ama dadka warkooda aan waxba kula ahayn oo qab isla weyni dareemaysid marka koowaad isla weynida wax banaan ma ahan isla weynina wax fiican ma ahan iska jooji haddii aad ku aragtid qof kale isla weyn ama iska ka weynaysiinayo ama dadka kale oo muslimiinta iska weynaysiinayo oo ka santaagay oo yani kibir ku jiro wax wanaagsan ma ah ka waani xadada waxaan walaal iska dhaaf hadduu diido ama uu ku dhageysan waayo waxa weeyaan qofkaas faa'iido ma soo wado run ahaantii iskaga carar intuu ku bari lahaa isla weyni iyo kibir adiga aan noqon lahayd soo kale waayo isla weyni rabbi ay u sugnaatay qof bilaadan ah basan ku neefla ahna kibir iyo isla weyni uma sugnaanin marka lambarka saddexaad waa lambarka afraad ee aan doonay maanta inaan wadaago waxa weeyaan niyad jebinta
qofka inuu asaga niyad jabo markay wax ku dhacaan ama markay wax si ka noqdaan, inuu macnaha murugoodo wax wanaagsan ma ahan. in uu dadka ka agdhow ama dadka la joogo ama dadka uu la dhaqmayo uu niyad jabiyo uu niyadda ka jabiyana wax wanaagsan ma ahan. qofka bini'aadanka markasta waxaa fiican nafsadiisa inuu niyaddiisa dhisto oo niyadda uusan jabsanin, markastana uu rajeeyo inuu khayr imaanayo, uusan waxan laga bixi doono. qofka kale dee wax ku dhacana niyadda uu dhiso oo uu dhaho macnaha wax dhib ma lahan, waa dhaafi doontaa, hor u soco, u dhiirigeliyo. marka niyad jabinta wax fiican ma ahan, ha la iska ilaaliyo. waa lambarka afraad ee maanta aan doonayo in aan ila qaybsado. ha niyad jabin naftaada, qof kalena ha niyad jabin, waa iga talo. lambarka shanaad ee walaalan kula qaybsanaya maanta waxa weeyaan isku dirka. run ahaanta isku dirka wax wanaagsan ma aha. nabigeenna waa kan yiri namimiya laa yadkhulu ljanna calayhi salaatu wasalaam, qofka namimiyaha jannada ma galo. marka nafsada hadda ka aragtay adoo dadka isku diray, adoo dadka war u kala qaaday, adoo dadka wadka ku sheegan bedelayo, ama dad isku xumaynayo, ama dad madax isku gelinayo, ka waantow, ilaahay ka baq. haddii aragto qof kale walaal ah oo dadka isku dirayo ama dadka warar u kala qaadayo, oo warkaaga intuu qaado qof kale u geenayo ama qof kale war ka soo qaada adiga ku geenayo, waxaa dhahdaa ilaahay ka baq, ma fiicno, ka waani. haddaa ku aragtid asagoo ku sii wado ama arrintaa ku sii wadana, run ahaantii waxa ku wanaagsan ama nabad wanaagsan inaan ka dheeraano. marka arrintaasi arrin fiican ma ahan, ha laga waantoobo. qof kasta oo aad aragtidna ugu nasteexay, haddaad uu kaa diidana waxaa weeyaan qofkaas inaad iskaga dheeraatid. maxaa yeelay waxaan ognahay namiimiye inuusan khayr lahayn, aakhirna khayr u ku lahayn, adduunya khayr u ku lahayn. marka aan iska ilaalin insha allahu tacaala. walaalayaal, marka koowaad waan iga raali gelinayaa. waxaan arkaa inuu videogu sii dheeraanayo. waxaan ina sheegay inaan 10 arrin in la wadaagi doono insha allahu tacaala, laakiin ma doonayo inuu videogu dheeraado oo aad ku caajistaan. marka run ahaantii waa ka xumahay. 5ta xigta insha allahu tacaala ama 5ta la socota qaybtan videogan kan xiga insha allah ayaan soo gelin doonaa insha allahu tacaala. arrinta tanna waa dhiirigelin guud iyo wacyigelin guud insha allahu tacaala. haddii aad aragtay inaan wax qalday, fadlan ila soo wadaag fikirkaaga, waan xushmeynaya insha allahu tacaala. haddii aad aragtay inaan wax wanaagsan u yahay, la wadaag walaalada si ay wax ugu faa'iidaan insha allah. waan rajeynaa muuqaalkan in wax kugu dhiirigeliyay ama aad ka faa'iiday. waa wacyigelin guud insha allahu tacaala. inoo sheer gareeya. waa walaalkii maxamed amiin oo ina leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.